بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن درسك ولا لضت المامين إن كلماتك لغير هذا سو الشاقي والاستقامة استقامة دين سومالي سود الدوين وقمانان inaad qumanaatid toosnaan ereygu qaama buu ka yimi alistiqaama marka waa toosnaan alictidaal walistiwaa toosnaanta maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa iimaanka iyo camalka saalixa inaad ku toosnaatid alistimraariya inaad joogtaysid wanaagga inaad noqonin qof weecweecanaya carabtu inta badan waxay dhahaan ka rawaqaani thaclab bay sheegaan waxay yidhaahdaan baasha la yidhahda dawacadu waxay ugaadhsanayso toos uma abaarta bay yidhahdaan way dhabacataa dabeetana way u warwareegtaa bay yidhahdaan sidii waxaan toos u soconin waxaa laynaga reebayaa markaa weecweecashada waxaa laynaga rabaa inaynu qumanaano oo diinta ku qumanaano oo ilaahay jidkiisa ku toosnaano ilaahay intaynu rabbi kala kulmayno qumanaantu waxay u baahan tahay dadaal badan iyo aqoon iyo cilmi walidalik baa waxay yidhahdaan min طabci اlinsaan aadanaha dhaqankiisa ama abuurkiisa waxaa ka mida bay yidhaahdaan atadabdub sensidual inuu socdo weecweecasho bini aadamku bay yidhaahdaan dareemadiisa iyo noloshiisa inuu joogteeyo waa ku adagtay wuxuu doonaba ha noqdo shaqo ha noqoto mashaacirta iyo dareenka iyo ixsaaska ha noqdo nashaadaadka iyo activitigaad qabanaysa ha noqoto bini aadamku joogtaynta inuu waxaa joogteeyo wax fudud maaha soomaaligana isaga dhagaxba kaga adag maxaa loo joogtayn kari waaye kow waa mowduc alimtixaan waa meesha laynagu itixaamay ee la rabo ma ku guuleysanayna mise waa ku dhacaynaa sidaa laynoo abuuray waxaana lagu talagalay in layna itixaamo aadanuhu wuxuu leeyahay shahwaatu nafs waxyaabadan oo naftu ay jeceshahay waxaa kaloo ku xeeran shayaaiin اljini walins kuwa dadka lumiyo badan oo bini aadamkana ka mid ah jinkana ka mid ah bini aadam dadka lumiyo tiro badan ayaa kugu xeeran shaydaankii shaydaanka ahaabaa kugu xeeran haddaba intaasoo dhan si aad uga guuleysan lahayd baa isweydiinta leh waxaana laynaga rabaa inaan naftu inaga bixin ilaa iyo inagoo muslimiina mooyaane laba aayadood oo fii kitaab illaahi ku yaala suurata ali cimraan iyo suurat albaqara ilaahay muxuu leeyahy في سورة البقرة يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فلا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلهي وحين لا يهجيريوننا إذن كان مسلم هين جيري ده we don't know قرن ما ينقر إيمانيس hadoo sii socdaa gaari ku jiiri ma wadnaha iskaa taagi ma maalmaad soo bukaan doonta garanaysa saad u dhimanayso mar haddaanad garanayn saad u dhimanayso macnaheedu waxa weeyaan noloshaada toosnow ha geeriyoonin baa lagu yidhi adigoo maxay aan muslim ahayn yay geeridu kuu imani wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ba fii suurati alxijrina ilaahay leeyahy rabbigaa caabud inta geeridu kaaga imanayso haddaba maadaama ay noloshu sidaa tahay waxaynu u baahannahay inaynu in badan ku xisaabtanno war ma toosannahay in badan inaynu isweydiino aqoonta ah sidee loo toosnaada in badan isweydiino waa maxay asbaabta kugu dhiiri gelinaysa ama kugu xejinaysa inaad toosnaato weliba cajabta nafta waxaa ku tusi kara nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay basharka ku ka doortaya
ayaa waxay saxaabadiisi tilmaamaysaa umu salama iyo anas ibnu malik iyo waxa ay tilmaamayaan saxaabadii nebi maxamed ducooyinka nebi maxamed umu salama markii la weydiiyey gurigaaga markuu joogo waxa ugu badan uu nebi maxamed ku ducaysta waa maxay waxay ducadan soo socotay sheegtay anas ibnu malik wuxuu isaguna leeyahay yukthir nebigu wuu badin jiray inuu yidhaahdo maxay yaa muqalliba alquluubi thabbit qalbii calaa diinik ilaaha qalbiyada gegediyow yaa muqalliba alquluub ilaaha qalbiyada gegediyow thabbit qalbii calaa diinik ku sug diintaada qalbigayga buu nebi maxamed ku ducaysanaya ilaahu weecweecshadaygaa ilaaliya ilaahu isug sida badan habaadka iyo istiqaamadu isku macno dhadhow bay tilmaamayaan markaasaa saxaabadii waxay dhaheen yaa nabiy allahi aamanaa bika wa bimaa ji'ta bihi fahal takhaafu calayna waanu ku rumaynay adiga iyo wixii aada la timiba waanu rumaynay ma waxaad nooga cabsi qabataa wax miyaad nooga cabsi qabtaa wax kale wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waa su-aasha dad badan rag badan baa isle haddaad war diintana waad garanaysaa ilaahiyna waad garanaysaa maadaa gaaloobaya ama maadaa xumaanaya wadaado badan baa dhulkan yimi oo is yidhi waa riyaad saalixiinka iyo qur-aankaba waad soo dhigatay ma gaal baa wax ku yeelaya rag badan baa libdhay oo aan lahaynin imika meelay ku dambeeyeen sababta waa maxay naftooday kalsooni bideen waxay is yidhaahdeen war waad isku filan tahay badda se markuu dhumbaday wuu isku filaan waayo markii badda nin waliba yimi isku filaanshihii waa la waayey saa daraaddeed bay saxaabadii waxay leeyihin ilaahay rasuulkiisiiyo waanu ku rumaynay wixii aada la timina waan rumaynay miyaad noo cabsi qabtaa nebigu wuxuu ku yidhi nacam ina alquluuba bayna isbacayni min asaabici illaahi yuqalibuha kayfa yashaa waa idiin cabsi qabaa buu nebigu yihi oo qalbiyada bini aadamku labada farood allay ku jiraanoo siduu doona buu u rogrogaa siduu doona u rogrogaa waa maxay haddaad wanaagga u janjeersatana ilaahay waa kuu kordhinayaa haddaad xumaha u reebtana falamaa azaaquu azaaqa allahu quluubahum taa kugu dhacaysa markay weecdeen ayaa ilaahay qalbiyadooda weeciyey sidaa awgeed ayuha alixiba bal u fiirsan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay qur-aanka inagala hadlaya oo waxaa la leeyahay wain kaaduu layaftinuunaka can aladii awxaynaa ilayka litaftariya calayna gayra waida latakhaduuka khaliila walowlaa an habatnaaka laqad kidta tarkanuu ilayhim shaya qaliila ida laadaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaat uma laa tajidu laka calayna nasiira subxaan allah waxay ku dhowaadeen baa ilaahay leeyahy nebi maxamedow inay ku fitneeyaan can iladii awxaynaa ilayk waxaanu kuu soo waxyoonay shayaaiinuljinniga iyo insigu inay kuweydaariyaan bay ku dhowaadeen litaftariya calayna gayra si aada noogu kor abuurato waxaanu kuu waxyoonay waxaan ahayn hadday dhici lahayd inaad xaggooda usoo yaro weecatana latakhaduuka khaliila baa ilaahay yihi saaxiib bay kaa dhigi lahaayeen yacni gaalada ilaahay wuxuu tilmaamaya waxay isku dayayaan inay ku lumiyaan haddii aada markaa weecato dhankooda u weecatana walan good waa lagu soo dhaweynayaa nin qoyska kusoo biiray ayaad ka mid tahay baa la leeyahay ilaahay baa markaa nebi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam walowlaa an habatnaak haddii lala-yay inaanu anagu ku sugnay baa ilaahay leeyahy laqad kidta tarkanuu ilayhim shay-an qaliila waxaad u dhowaatay inaad in yar xaggooda u weecato haddii nebi maxamed ilaahay sidaa ka sheegay cidda nebi maxamed ka sokaysa maxaad ka fili sheekh iyo shariifba haddii nebi maxamed ilaahay sidaa uu ka tilmaamayo ciddii ka sokaysay nebi maxamed maxaad u malaynaysa ilaahay markaasuu leeyay idan la adaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaat haddaad shaygaa raaci lahaydna waxaanu ku dhadhansiin lahayn baa ilaahay leeyay subxaanahu watacaala cadaab nololeed iyo mid aakhira iyo mid walba ood dhadhamin lahayd wax nooga kaa gargaarana maad hesheen haddaba ayuha alaxiba waxaa laynaga rabaa inaynu toosnaano oo ilaahay wuxuu ina leeyahy walaa takunuu kaalatii naqadat gazlaha min bacdi quwati ankaatha carabtu waxay sheegaan habar mooyine waalayd iyo in wax u dhinmeene habar bay sheegeen gelinka hore wax tidci jirtay
xadhkay soo hijirtay gelinka dambena shaqadeedu waxay ahayd inay furfurto marka maalin walba waa shaqo joogtaa gelinka horena waa tidicdaa gelinka dambena waa maxay waa furfurtaa ilaahay baa tii ugu maahmaaho ilaahay wuxuu yidhi walaa takuunuu ha la mid noqonina kalatii naqadat gazlaha min bacdi quwatin ankaatha tii gelinkii hore tidicdaya toshay gelinkii dambena furfurtay taa ha ku biirina baa ilaahayna leeyahy subxaana wa tacaala ayuha alaxiba dadka badh baa acmaal saalixa sameeya dabeetana istus iyo ismaqashii iyo macaasi iyo kabaa'ir ku buriya qaar baa wadada saxaa haya kadibna raadkoodii dib u raacuno munaafaqnimo iyo ridda ku dhaca walciyaadu billaah waxay isweydiinta leh toosnaantu waa wax adag weliba da-yarteenina dhib baaba haysataa intay dhowr iyo 10 jir ka yaryihiinna qadaadkaynu haynaa qur-aanka qeyb malcamada tag qur-aanka qeyb baynu ku wadnaa dhowr iyo 10 jir markuu gaadhana masaajidka mabuu baalmara qur-aan qaybisiyo baabka iska daaya hadduu qaybayna waa ilaaba haddaanu qaybin awalba waxba kama qaybin uu dhinac mara xaggay beledu ka taagantay marka nabi maxamed baa wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxaa dhici doonta waqti yusbixu arajulu mu'mina ninku ay dhici doonto inuu waa beristo isagoo mu'mina wa yumsi kaafira uu galabaysan doono isagoo kaafira gelinka hore waa mu'min gelinka dambena waa gaal cajab gelinka hore waa mu'min oo ama salaad buu tukaday ama gelinka dambena acmaal lagu gaaloobayu wadaa yani toosnaan dadkani ma laha wayusbixu kaafira wayumsi mu'mina waa berisanaya isagoo gaala haddana yani waa maxay islaamnimadaanu ku qumanaanaynin gaalnimadii iyo islaamnimadii buu dhex socdaa yabiicu diinahu bicaradin min addunya maxaa ku kalifay diintiisa ku gadanaya in yaroo adduunye ah buu nabigu leeyahy calayh isalaatu wasalaam diintiisii ayuu ku gadanayaa maxay adduun yar idan waryaadheen toosnaanta wax fudud maaha inaad naftaada iyo shaydaan iyo jin iyo insiba dagaal la gashaa haddana aada warmooga tahay wax fudud maaha ilaahay qur-aanka wuxuu inoogaga waramayaa qaar culamo ahaa culamo waaweyn oo ka siibtay ilaahay kitaabkiisii watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbachu shayطaan fakana min alghaawiin baa ilahay yihi waxaa dadka ku akhridaa xasuusisaa baa ilaahay yihi warkii kii aanu siinay aayaadka iyaga baa ilaahay leeyihi culamada barh baa yidhaahdaa nin mustajaabu dacwo abuu xataa ahaan jiri ismullahi lacdam ku yaqaanay bay qaar sheegaan wax kasta haato waa nin ilaahay aayaadkiisii la siiyey wax garanayey isagoo wax garanaya ilaahay muu odhan muu noqday waxaa ihi fansalakh waa ka siibtay kaanamaa haragga neefka marka haragga laga saarayo soo lagama siibo kaanamaa war kitaabkunu leeyahy war soo joog isna uu maxay ka muruxsanayo faatbacahu shayطaan baa ilahay yihi shayطaan baa raacay isagii baaba macallin noqdo shayطaanku daba socda fakana min alghaawiin idan ayuha alaxiba nabigu calayhi الsalaatu wasalaam duul buu tilmaamay intay camal wanaagsan sameeyaan camalka ahlu janna siday u wadaan marka dambun dib uga noqonayo camalka ahlu naarka sameynaya oo naarta lagu tuuri doono haddaba ayuha alaxiba qof kastoo mu'mina oo dunida jooga umniyaadkiisa waxa uu rajaynaya laba shay baa ka mid ah cimri dheer iyo camal wanaagsan baynu jecelnahay qofna ma jecla in la yidhaahdo nafta hadda ha lagaa qabto qof waliba in la ziyaadiyo bahashaasi oo aan hore loogu imanin buu jeceliyay isla markaa qof waliba wuxuu jecelaya camalkiisu inuu maxay waxaanuu nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam khayru الnaasi man طaala cumruhu waxasuna camaluh xadiiska tirmidi sheekh alalbani saxiixa ku tilmaamo dadka waxa u khayr badan ninka cimrigiisu dheeraado camalkiisuna wanaagsanaado haddaba ayuha alxiba garan maysid cimrigaagu inuu dheeraanayo inuu gaaban garan maysad khaatimadaadu waxay noqon doonto laakiin haddaa waxaad garanaysaa inaad jidkaa iska saaraatid oo ku toosnaatid
lacalla adigoo qumanuunin mar naftu kaa baxde lacalla mucawiqaadka waxyaabaha dadka jidka weydaarayaana waa tiro badan yihin nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa maalmaha dambeeya ayaamu sabriga la yidhaahdo diinta qofka haystaa uu konton idinka idinla mida la ajar yahay baa la yidhi baahantay ilahina qur-aanka wuxuu inagu leeyahay faاstaqiimuu ilayhi wastakfiruuh waryaadheen xagga rabbi u toosnaada faاstaqiimuu ilayh wastakfiruuh wixii dembi idinka dhacana ilaahay subxaanaه wa tacaala dembi dhaaf weydiista qur-aanka laba meelood oo ka mid ah ayaa waxaa ku soo arooray dadka ammaan la ammaanayo iyo ajarka ay leeyihin weynidiisa si laynoo jeclaysiiyo oo waa maxay ina aladiina qaaluu rabbuna allah kuwa yidhaahda baa ilaahay yidhi allah noo rabbiya rabbigayo waa alle uma istaqaamuu baa ilaahay yidhi dabeetana ku toosnaada weedha allah ii rabbiya macnay sheegaysaa macnaha ku toosnaada baa ilaahay leeyihi kuwaas malaa'ig baa ilaahay kusoo dejinaya malaa'ikatu raxma oo maxay leeyihiin marka nafta laga qabanayo laba shay baa qofka bini aadamka markuu dunida ka baxayo warwar ku haya meesha uu ka tegayaa warwar bay ku haysaa oo talow caruurtii iyo reerihii iyo dadkii iyo maxay noqon ilaa adduunku isku dhamma ma lehe maraad sileeday shaqadii waa dhamaysay yaa nafta kaa qabta ma jirto mar kasta oo wuxuunbaad sileeday war waxbaa dayacane talow siday noqon kuwani waxaad kaloo ka warwaraysaa oo kaaga sii daran war talow maxaa kaa horeeya war wixii aad samaynaysa alla ma kaa aqbala war ma kuwa naarta aad noqon mise kuwa jannadaad noqon xaalkaa siduu noqon warwar baa kugu jira ilaahay wuxuu leeyahay dadkii toosnaan jiray malaa'ig baa u imanaysa u bushaaraynaysa maxaa loogu bushaaraynaya anlaa takhaafuu walaa taxzanuu ha cabsanina oo waxa idinka horeeya ha ka cabsanina baa laleeyahy kuwa nabadgala ka midti ha tiiraanyoonin oo wixii aad ka timi ha ka murugoonin baa la ydhahaa rabbigood bay leeyihin waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun jannadaan idiin ballan qaaday ku bushaaraysta fii suurati alaxqaafna sidoo kale baa ilaahay leeyahy ina aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu kuwa yidhi allah noo rabbiya ee ku toosnaaday falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun baa ilahay yidhi cabsiyo korkooda maha oo waxa soo socda kama cabsanayaan walaa hum yaxzanuun murugiyo tiiraanyana ma hayso oo wixii ka tegay ka murugoon maayaan ulaaئika asxaabu اljannati khaalidiina fiiha jazaan bima kaanuu yacmaluun baa ilaah yidhi kuwaasi waa reer janno waana ku waarayaan iyadoo lagu abaalmarinayo wixii ay soo camal fameeyeen daraaddeed sababtii waxaa ilaahay qur-aanka inoogu sheegayaa taasi waa aakhiro iyo waxa la helayo adduunka ilahay wuxuu ina leeyay waan low istaqaamuu calى اطariiqati laasqaynaahum maءa gadaqa linaftinahum fiih waman yucrid can dikri rabbihi yasluka cadaaba sacada hadday ku toosnaadaan baa ilaahay leeyahay jidka rabbi hadday ku toosnaan lahaayeen waxaanu ka waraabin lahayn baa ilaahay leeyahay biyo badan oo yacni badhaadh iyo barwaaqaanu ku noolaan lahay roob iyo abaar iyo mushkilada waxaynugu itixaamay toosnaantii baa laynaga waayay haddaad toosnaan lahaydeen baa ilaahay leeyahy waa laydin badhaadhayn lahaa biyaha waa ka dhargi lahaydeen laakiin adduunina mar kastaba imtixaan ya haddana alla waxaynu noo sheegay marka layna dhargiyana ilaahay wuxuu yihi linaftinahum fiih isaga laftiisu waa imtixaan kale inta badan bini aadamka muslimka ahay imtixaanka dhibta ah wuu ku toobad keenaa faqrigiisa u muuqda marka dhibtu ku qabsato yaa rabbidaa badata dheragta si rabbiba waa la ilaabaa inta badan labada imtixaan imtixaanka dheragta khatarsan imtixaanka dheragta kibir baa bilaabma iyo qooq iyo balacab iyo kibir oo dhan baa bilaabma soomaalidana waa taqaaneeno xataa colaadahooda iyo dagaaladoodu markay abaartu dhacdo way isu nasan jireen ya allah bay odhan jireen marka gugu u da-ana rabshadaa bay bilaabi jireen ilaahay wuxuu ina leeyahay markaas linaftinahum fiih waman yucrid can dikri rabbihi yasluku cadaaban sacada
ninkii ilaahay xuskiisa ka jeesta waxaa la marin oo la gelin cadaab adag fuuritaankiisu. haddaba ayuha alaxiba, ilaahay wuxuu ina leeyahay isagoo nebi maxamed la hadlaya laba aayadood oo kale, fastaqim kamaa umirta, fastaqim kamaa umirta baa ilaahay nebigu ku yidhi, wastaqim kamaa umirtana fii suurati shuuraa bay ku jirtay. fii suurati huud ilaahay wuxuu ku yihi fastaqim kamaa umirta waman taaba macak walaa tadqow, u toosnow sidii rabbi ku amray. hadda waa nebi maxamed cidda lagu leeyahy. suuratu huud aayaadkan intaan laga warramin aayaadka ka horeeya wixii nebiya soo qabsaday baa ilaahay ka warramay. nabiyullaahi nuux, nabiyullaahi ibraahim, nabiyullaahi saalix, nabiyullaahi shucayb, nabiyullaahi luut, nabiyullaahi muusa, waxaasoo ambiyaaba qisaskooda ilaahay kaga warramaya. nabiyullaahi huud iyo tolkood wixii kala qabsaday. markii ambiyadaa laga warramay iyo wixii lagu sameeyey iyo wixii la kulmay iyo waxay dhib arkeen ayaa ilaahay nebi maxamed markaa awaamir siiyey. nebi maxamedna waxaa la yidhi fastaqim kamaa umirt waman taaba macak walaa tadqow inahu bima tacmaluuna basiir. u toosnow baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala sida rabbi ku faray, adiga iyo inta kula socotee ilaahay u toobad keentayba. nebi maxamed waxaa laga sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu yidhaahdo shayabatnii huudun wa akhawaatuhaa qabla almashiib. wakti ciro anigu aan gaadhin, timan ciro aan badnayn baa nebiga ku yaalay, laakiin nebigu wuxuu leeyahay waxoogaaga kanna waxa iga soo saaray waxa i cireeyey huud iyo walaaladeed. wa fii bacdi riwaayaatna wa akhawaatuha min almufasal, qur-aanka hoose riwaayo kalena waxay tilmaamaysaa shayabatnii huud wاlwaaqicatu wاlmursalaatu wacama yatasaa'aluuna waida shamsi kuwirat. kuwaas baa i cireeyey buu nebigu leeyahy calayh الsalaatu wasalaam. qur-aanka uu sheegayaa qiyaame iyo waxa dambeeyaa u badan wuxuu ka waramayo. waxa dambeeya aakhiro dee waa maalinta ilaahay ku tilmaamay wildaanku kuwa dhashay inay ciroobayaan, shayban inay noqonayaan. haddaba kuma qofka la leeyahay toosnow, man huwa? inahu aclamu اlkhalqi biاllah, waa dadkaba ninkii rabbi u yaqaanay ee ugu cabsi badna ayaa ilaahay wuxuu ku leeyahay maxay? toosnow. wاstaqim kamaa umirt walaa tttabic ahwaa'ahum wqul aamantu bima anzla allahu min kitaab waumirtu liyacdila baynakum allahu rabuna wrabukum lana acmaaluna walakum acmaalukum laa xujata baynana wabaynakum allahu yajmacu baynana wailayhi lmasiir. waxay culamadu dhahan waa 10 jumladood oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu amrayo. ayuha alaxiba, toosnida iyo qumanidu jawaamic اlkelimka nebi maxamed la siiyey calayhi salaatu wasalaam. ilaahay nebi maxamed wuxuu siiyey jawaamic اlkelim. jawaamic اlkelimka waa maxay? erayo kooban ayuu macno ballaadhan ku sheegaa. sidan casrigan dadku khudbadaynayaan hadalka badan akrinayaan nebi maxamed ma ahayn calayhi salaatu wasalaam. war kooban oo dadkuba intuu qaybo xambaari karo laakiin macnahoo dhan sida buu sheegi jiray. waraadu kooban. nin baa u yimi sufyaan ibnu cabdalla athaqafi, saxaabi la odhan jiray. dabeetana wuxuu yihi ilaahay rasuulkiisiiyow qul lii fi lislaami qowla laa as'alu canhu axada bacdak. ilaahay rasuulkiisiiyow islaamnimada war iga sheeg aanan qof dambe weydiinin. wa fii riwaaya hayrak, islaamnimada wax iga sheeg igu filaata waanan cid dambe warkiisa u baahanin. nabigu calayhi salaatu wasalaam waa su-aal adag. intu qofku kuu yimaado ku yidhaahdo diinta wariga si aanan wax dambena cid weydiinin, in ugu filaato un maanta ii sheeg haddii lagu yidhaahdo meelaad kaba baadi doonto garan maysid. laakiin nebi maxamed maadaama ilaahay jawaamiculkelim siiyey, wuxuu sheegay erayo kooban oo ninkaasi wuxuu doonayay oo dhan xambaara. wuxuu ku yidhi qul aamantu biاllahi uma istaqim buu nebigu ku yidhi. waxaad tidhaahdaa ilaahay baan rumeeyey
kuna toosna warkaa marka intaa unbuu nebigu sheegay. soo ma rabtid war inaan ku faro islaamnimada aanad cid dambeba wax weydiinin, warkaasi wuxuu yahay buu nebigu yihi qul aamantu billaah, dheh ilaahay baan rumeeyey, kadibna ku toosnow, ku qumanow, warkaasi raac. karaamada ugu weyn dadka badh baa waxay dadku had iyo goor awliyada iyo wax marka waramayaan, ninkii ducaal alla ka aqbalo waxay yidhahdeen waa weli, karaamo hebel baa ka dhacday. karaamo waxa u weyn in ilaahay kugu karaameeyo inaad toosnaato. acdam karaama waa luzuum alistiqaama. awliyanimadaada ugu fiican ee ilaahay uu ku siiyaa waa inuu ruux quman kaa dhigo, ruuxaan weecweecsanayn oo wadada kolba ka baxayn. afaman yamshi mukiban calى wajhihi ahda am man yamshi sawiya calى siraaطi mustaqiim. nabi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam oo inala hadlayo inoo talinaya, xadiis saxiix wuxuu ku tilmaamaya istaqiimu walan tuxsu, toosnaada mana dhammaynaysaan buu nebigu leeyahy. yacni ma awoodaan inaa aydan in yarna weecweecan, laakiin toosnaada. waaclamuu waxaa ogaataan ana khayra acmaalikum aلsalaa, acmaashiina waxa ugu fiican camal la sameeyo bacda tawxiid, salaad baa ugu fiican buu nebigu leeyahy. hadday salaadi kaa dayacanto, diini kaa dayacanta ogsanow, istiqaamo waad ka fog tahay. hadday salaadiba kaa dayacanto, istiqaamo iyo adiga in dheer baa idin dhexaysa. aayaadkii uu nebigu lahaa, suuradduu lahaa way gaboojisaynaa. waxyaabuu ku tilmaamaya waxaa ka mid a ilaahay subxaana wa tacaala fastaqim kamaa umirta waman taaba ma maxaa ku jiray waaqim الsalaata طarafay الnahaari wazulfa min alleyl ayaa ka mid ahay. waxaa samaysaan salaad baa u fiican baa rabi ayuu nebigu leeyahy. walaa yuxaafidu calى اlwuduءi ilaa mu'min, weysana ma dhowrtoo ma ilaaliyo qof mu'mina mooyaane. yani islaamnimada waxyaabaa ugu fiican waxaa ka mid ah inaan weysadu kaa jabin. hadday kaa jabto inaad dib u weysaysato, masquulba haddaad weysaysato, masquulba haddaad gashay inaad soo weysaysato, inaad daahir ahaataa. haddaba nebigu wuxuu inoo tilmaamayaa istaqiimuu walan tuxsu, toosnaada mana dhammaynaysaan. xadiid labaadoo bukhaari iyo muslim uu ku yaala wuxuu nebigu yihi sadiduu waqaaribuu waabshiruu. sadiduu, asadaad waa toosnaanta lafteedii ama isaabada. waqaaribuuna almuqaaraba alqasd. maalan marka aada dhugtamayso, dhugtanka soo ma taqaanin, rasaas ama waran marka wax la wada liishaamayo la dhugtamayo, maxaynu samaynaa? meel baa calaamad yar laynoo dhigaa ama waxbaa la dhigaa, dadkao dhami wuu toogtaa. laakiin mostly waxay u badan tahay dhibicda santarkaa qof iyo labunbay ugu dhacaysaa. haddayga xataa kuugu dhacdo ka labaad waxaa laga yaabaa inaad dhinaciisa ku dhufato. nebigu wuxuu ina leeyahy war waxaa samaysaan dhugtankaasi, sadidu marka hore ku day inaad halka toosan la heshid, dee xaggaa ha isaga tuurin waragga, ee meeshii lagu dhugtamaye la eego, ku dhaweena xataa haddaad santarka la weydo maxay duleedkeeda hareeraheeda ha ku dhacdo. haddaa sidaa yeeshaan buu nebigu yihi dee bushaaraystana. markaasuu nebigu wuxuu leeyahy waclamuu anahu lan yudkhila aljannata axada camaluhu. ogaadana nina camalkiisu inaanu janno geynin. yacni jannada ilaahay waa ka qaalisantay waxoogaa ka yaraynu samayno. jannada ilaahay waa ka weyntay. addunya wacasharatu amhaaliha, jahanamiyiin kuwa ugu dambeeya ee janno soo gala ayaa waxay leeyihiin maxay? adduunka iyo 10 laabkii xagga hore raggii ka galay. markaa maxay leeyihin? acmaashaad shaqaysayna waa maxay? 60 sano 50 sano aad waxoogaa wadwaday, idan wax gooye maaha, laakiin sabab bay u noqotaa. saxaabadu markay yidhaahdeen walaa anta ya rasuul allah, oo xataa adigu camalkaaguna miyaanu janno goonin? qaala walaa ana buu nebigu yihi ila an yataqamadanii allahu bimakfirati waraxma. ilaahay inuu naxariistiisa igu daboolo oo dembigayga dhaafo mooyaane anigana ma xataa camalkaygu ma gooyo.
waclamuu ana axabu alacmaal ila allahi adwamuhu wain qal. laakiin waxaa ogsoonaataan buu nebigu yihi ilaahay agtiisa camal waxaa loogu jeceliyay kuwa la joogteeyo, istimraariyada, istiqaamada, habaadka, wixii ku sugma ayaa ilaahay agtiisa loogu jeceliyay haba yaraadee acmaashaadu inay joogta noqoto. idan ayuha alaxiba, waxaa laynaga rabaa alsadaad walmuqaaraba, inaynu isku dayno inaynu barta asiibi karno, inaynu ku biro ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llah wakunuu maca asaadiqiin, ilaahay ka cabsada oo inta runta sheegaysa sidiiqiinta macooda ahaada. inaynu ku biro min almu'miniina rijaalu sadaquu maa caahadu llaha calayh faminhum man qadaa naxbah waminhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila. muminiinta waxaa ka mida baa ilaahay yihi kuwa rumeeyey waxay ilaahay ballan la galeen oo ku dhintay, iyo kuwa jidkii hayo waan waxba bedelin. ilahay wuxuu inoo tilmaamayaa falow sadaquu llaha lakaana khayra lahum. hadday dadku run sheegaan iyadaa u khayr badnaan lahay. ka run sheegaan waxay samaynayaan lain sadaqta allaha haddaad ilaahay u run sheegto ilahayna waa kuu run sheegayaa baa la yidhi. ilaahay ballankiisa haddaa oofisaan isna ballankiina waa idiin oofinaya. ayuha alaxiba, istiqaamadu waa dadaal, laakiin ko waxaa layna yihi fastaqim kamaa umirt, sidii laguu faray. waxay culamadu yidhaahdaan markaa walaa tattabic ahwaa'ahum baa aayadda kalena ilaahay leeyahy. macnaheedu waa maxay? istiqaamadu waa itibaace, ibtidaac maaha. toosnowdu waxaa lagu toosnaadaa wixii rabbi ku faray, oo waxa rabbi ku faray waa maxay? diintaa laga raadiyaa. hays odhanin toosno waa bidac iyo wax cusub ha samaysanino, hays odhanin camalka biiri. war intii nebi maxamed samayn jiray kama badin kartid. miyuu inagu jiraa cid nebi maxamed ka badin kartaa? may. idan intiisii baanad gaari karin, maxaad in kale raadcay? dadka barbaa ama bidaca qaar ba xasana, qaar ba sayi. bal horta ha inooba dambayso xasane iyo sayi-adeedube kollayba tii nebi maxamed soo kama fadli badna, tiina ma dhammayn karayno. saa daraaddeed bal markaa taa soo dhammayso aan baabka kale isweydiino. markaa taa soo dhammayso aan baabka kale u nimaadayo su-aashiisa. 3 saxaabi walaa tatqaw baa ilaahay yihi, ha xodgudbinina. istiqaamada markaaynu rabnaa tacaabiirta iyo iminka isticmaalaan wasatiyay sheegaan. iyo kan wasatiyadiiyo waxaa la sheegaya o dham waa istiqaamada. oo waa maxay? waa walaa tatqaw walaa tattabic ahwaahum. taa labada aayadood ku jirta weeyaan. ha xadgudbin. ha xadgudbin marka layna yidhi maxaa loo jeedaa? 3 saxaabi ayaa guryihii nebiga tegey, markaasay waraysteen maxaa camal uu nebigu qaban jiray. markaasaa loo sheegay. waabay la yaraatay intii nebi maxamed. haddana si kale ay u fakereenoo waxay yidhaahdeen war nebi maxamed isaga ilaahay baa dembigiisii hore iyo kiisii dambaba dhaafay, isagu daa walba dembi ma lahayn. inagu de waa dambaabnaaye, mar haddaynu dambaabno waa logic ba la cayaaraya. mar haddaynu dambaabno de intii nebi maxamed waa inaynu ka badinaa. isagu ma dambaabin, intaana wuu sameeyey. haddaba inaga dambaa inoo dheere, inagu waa inaynu ka badinaa maxay? intii uu samayn jiray. oo maxaynu samayn? mid baa dabeete wuxuu yihi isaga ilaahay dembigiisii hore iyo kiisii dambaba uu dhaafay, inaga waxba garan mayne, anigu habeenba seexan maayo waan taagnaanun buu yihi, salaad un baan ku jiri. kii kale wuxuu yihi aniguna cunaba waan iska dhaaf, waan soomanaa, soonun baan wadi. midi salaadun baan wadi buu leeyahy. midina wuxuu leeyahy maxay? soonun baan wadi. midina wuxuu yihi war dumarkan iyo caruurtan iyo waa waxaa diintaba dadka ka mashquuliyeen, guur naageed baa anigu waan dhaafi buu yihi. zaahid baan iska noqon, haweenintu ka dheeraado, cibaado unu banbaxa weeyaan. dabeetana nabigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam. nebigu nimankiiba u yeedhay, wuxuu ku yihi antum aladiina qultum kada wakada wakada. war ma idinkaa nimankii waxaa sheegay? ma idinkaa sidaa iyo sidaa yidhi? haaba yidhahdeen. wuxuu ku yihi markaa ama wallah inii la akhshaakum lilahi wa atqaakum lah. ilaahay baan ku dhaartee buu yihi anigaa ilaahay idinku alla ka cabsi badan, idinkuna taqwo badan. alkhashya iyo wataqwa, anaa idinku alla ka cabsi badan oo idinku dhowrsanaan badan. naar wax lagaga dhowrsado anaa idinku badan buu nebigu leeyahy.
riwaayadda imaamu axmedna waxay tilmaamaysaa wallahi inii la aclamukum billaahi, anaa alla idinku cilmi badan wa atqaakum lahu qalba. idan labada riwaayadoodba taqwo way sheegeen, ee midna cilmay sheegtay midna khashyay sheegtay, laakiin khashyad iyo cilmiguna waa wada socdaan oo ilaahay baa qur-aanka ku yidhi inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaau. alle wuxuunbaabaa cabsida dhabtaa ka cabsada kuwa maxay ilaahay aqoonta u leh. dee nin ilaahay garanayunbaa ilaahay ka baqa, nimaan rabbi iyo weynidiisa iyo cadaabkiisa iyo naartiisaba garanayni ama se ogeyni dee ma cabsado. laakiin ninka rabbi og iyo awoodiisa wuu cabsan. saas daraaddeed buu wuxuu nebigu ku leeyay war anaa ilaahay idinku aqoon badan, idinku khashyo badan, idinku cabsi badan, idinku dhowrsanaan badan. haddana buu nebigu yidhi anigu waan soomaa waanan afuraa, waan seexdaa waanan tukadaa, dumarkana waan guursadaa. war ninkii jidkayga ka weecdow aniga igama mid tihid buu nebigu leeyay. faman ragiba can sunnatii falaysa mini, aniga wadadaydii ma haysid weeyaan. xadiidkan maxaan u keenay? waxaan u keenay istiqaamadu inaanay macnaheedu ahayn wax cusub inaynu iska bilbilowno inu isnahda cibaadada badi, cibaadada badi, laakiin ariiqii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku badi. dadka badhna kuwani waa kuwii guluwiga ku dhacay, dadka badhna cagsigay ku dhacaan. dadka badh ba haddaad tidhahda war ilaahay waa gafuuru raxiim la soo taagay, in sha allah ilaahay de waa gafuuru raxiim. waxay u badantahy dadku intuu wuxuu doono iska sameeyo wuxuu kale de inagu muslimiin baynu nahay len garantii buu iska sitaa ah inaanu isagoo cadaab galaynin, inagu ilan muslim baynu nahay. ilaahay qur-aanka wuxuu inooga warramay qisas tiro badan. yahuud baa ilaahay ka warramay waqatacnaahum umama minhum asaalixuun wa minhum, waa qaybinay baa la yidhi nimankii yahuudeed markay dembiga galeen waa googoyna dhulka lagu firdhiyey. laakiin waxaa kamida baa ilaahay tilmaamay weli dad saalixiina. laakiin haddana ilaahay wuxuu sheegay yuhuudda noocii dambe. maxaa ilaahay yuhuud inoogaga waramaya ee qur-aanku waxaan oo dhan uga sheegaya? waxaa la rabaa in laynoo tilmaamo inaanu ahayn waxa sheegasho eh inay tahay acmaal. annagaa ah abnaa ullahi wa axibaa-u bay sheegteen, annagaa 40 casho qurun baaba nala cadaaba inta kale nala cadaabi maayay sheegteen. sheegasho inaanu arrinku ahayn. qur-aanku wax kaloo laynoo tilmaamay nimanka yuhuudeed haddii dee abtirsiin tahay, haddaynaan cidi ka abtirsiin fiicnayn soo ma ogidin. waa ilmo nebi israa'iil. nebi israiil waa nebi yacquub. nebi yacquubna waa iyo wayna nebi isxaaq. nebi isxaaqna waa iyo wayna nebi ibraahim. 3 nebi cid ku abtirsata waynu garayna iyagaa jooga. carabi 2 nebi bay ku abtirsataa soo maaha, nebi ismaaciil iyo nebi ibraahim. iyaguse waxay ku abtirsadaan maxay? 3 nebi. haddii markaa nebi iyo rasuul baan galaa ay arrinku tahay, yuhuud baa ku guulaysan lahay. laakiin ilaahay wuxuu tilmaamay fakhalafa min bacdihim khalfun, kuwii hore ee fiicnaa qaar baa gadaal maray baa ilaahay yidhi. khalfun, duul xun baa gadaal maray. duulkan maxaa lagu ceebeynaya? ilaahay wuxuu yihi warisu lkitaaba, kitaabka way dhaxleen. kitaabka waxa dhaxalka loo heliyo waxa dhididka lagu helay weligeedba waa kala nooc. saxaabadu diinta maxay ku heleen? naf iyo dhiig bay ku heleen, naf iyo maalba bay u bixiyeen. iyagoo taagan baa raggoodii waaweynaa u dhintay, loo wada dhaawacmay, hantidoodii ku lumiyeen, way ku mintideen markaa. laakiin dadkii dhaxalka ku helay, aabayaasheen baynu ka dhaxalay inagu soo maha. walaa dhiig baynan ku helin, walaa xoolaan inaga bixin, walaa xawtoona. waxaa ilaahay inugu manaystay aabba iyo hooyo muslimiina ina dhalaan oo qur-aan laysaga keendiro dhul muslimaad ku dhasho, dhaxal baad ku heshay. ilaahay qoladan wuxuu yihi kuwii hore qaar baa ka dambeeyey kitaabka dhaxal ku helay. dhaqankoodna maxay yahay? ya'khuduuna carada hada aladnaa baa ilaha yidhi. dunidan liidata wixii uga yimaada wa iska qaataan. wayaquuluun waxaanay leeyihin xaraan iyo xalaal ma kala yaqaanin baa la yidhi. haddana waxay leeyihiin sayukfaru lana, waa naloo dembi dhaafi. maba xumo intaad xumo samaysay haddii aad ilaahay xasuusato toobad keentay. ilaahay wuxuu leeyahy wan yaatihim caradun milu yaakuduuh. haddii mar labaad
xaaraanta ay soo marto haddana waa samaynayaan baa ilaahay yihi subxaana wa tacaala. oo waa maxay? qofku hadduu xumayntuu sameeyey toobad keeno, toobad nasuuxa toobad keeno la geray, ilahay waa u dambi dhaaf. laakiin kani intuu wuxuu doono sameeyaa buu leeya insha allah ilahay baa inoo dambi dhaafaya, damba kama leh. عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. وارميان كوان بلن إلهي كقادم كتابك ميان بلن أدق لك كقادم با إلهي ليوه إن أنا إلهي حق مو يعني وحكى لنا كشيء. وارميان كوي كتابك برطيهين با إلهي ليوه وحكو قرأوا هي آخرة ضميسة. والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون. أيدك حكتا إلهي وحيري والذين يمسكون بالكتاب كوا يو كتابك كل دقيقة يقبصنيا وأقاموا الصلاة سلادنا أوغيا إنا لا نضيع أجر المصلحين كوا وناقة سميني إيقاي تشكوض الله من ما يبا إلهيري قول هذه كتابك إلي قبصة تسكو ديسة الددالك كم مغضي سلادنا أوغيا قول هذا أتشكوض الضيع ما يا إلهي لكن nimanka intay kitaabka dhaxleen le waana loo dambi dhaafi doonaa sidaa wax lagaga heli maayo. ayuha laxiba, labada dhandhanna ma banaana. istiqaamadu waxa weeyaan xaggaana inaanad uga dhicin oo inta qulubu kugu dhaco diinta aanad ku xadgudbin, xaggana inaanad u dhicinoo intaad diintaba sii dayso inaanad iska taagnaan un sayukfaru lana, labadaa midna inaanad marina, inaad marta maxay jidka quman. istiqaamada macnaheedu maaha dambiba bandhacaya maaha. نبي محمد باوحو لي كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. آدم هو اللي موقفه ومن طبعنا قفك وين قدعية، لكن كو قفك كدع وحوفي عن بالليلي كو توبض ضبوضة إلى هيبة محين يلي فاستقيموا إليه محاكو حقا واستغفروه بإلهي فاستقيموا إليه واستغفروه كو من هذا تشتك ربي وهديبه وحيد كدع دعانا محي واستغفروه. معاذ بن جبل مركو لدردار بي نبيكم محوكو يري اتق الله حيثما كنت ورميل كستو ربك كعبسو هديبه وحكاها حمادانا واتبع السيئة الحسنة تمحوها ونك كدبقي حماها كان عيضا مصحيسين. إن الذين اتقوا إذا مسهم إلهي وحلي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. كوا الله كعبسك يقوم منانتا لغو يقانا وحا أرقودو يي هذه طائف من الشيطان متسعدو الشيطاني هدو صومرو خواطر شيطانية وحن في عينين بها هديكو صور دعان تذكروا إلهي بحصوصتان فإذا هم مبصرون بإلهي سوابكو وحرقيا أنصو كوبني inaynu toosnaana inagaa dani inoogu jirta. fawaa'ideeda waxaa ka mid ah nabi maxamed wuxuu yihi ixfad illaaha yaxfadka, ilaahay ilaaliya, jidkiisa iyo diintiisa ilaaliya. maxaa ka ratibmaya? adigana ilaahay baa ku ilaalinaya. haddaad salaada ilaaliso shaqo lagaaga eriyo ilaahay baa ku ilaalinayo, shaqo ka fiican iyo khayr ka fiican ku sii. haddaad se tidhaahdo salaada iyo shaqada dee shaqada laga tegi karaya haddaad tidhaahdo, haddaad ta rabbi dayacda ilaahayna waa ku dayacaya. waxba ka keeni maysid meeshaad isku sinamayso. asalku waxa weeyaan ilaahay wuxuu kuu ballan qaaday haddaad isaga ilaaliso. ixfad illaaha buu nabi maxamed ku leeyahy, war ilaahay ilaali. natiijadu waa maxay? yaxfadka allah, ilaahay baa ku ilaalinaysa, waad ka helaysa. waxa uu nabigu ina leeyahy man salla alfajra, ninka salaada subax tukada. رواية مسلم. ابن ماجه نمحولي من صلى الصبح في جماعة، صلاة الصبح نك جماعة كنت كذا فهو في ذمة الله ابن نبوي كاسي وحو كجرا إلهي بلكي انشورنسكي من صلاة الصبح جماعة كسوت كذا هذا دبدبتو بلا يكو قد عيسى إلالي وانشورنسك ربيعت كجرتا هذا كور وريكتو ومشكلة. إذن هداد إلهي إلاليسي وصلاة الصبح أنت تمي جمع تكتي إلهي الذمدي بتكون شرتا عيدنا وحكومية لكرتو عبسا لا قال ولا عيد كلام عرور بينه بغي ما يكوى كان ور هداد أدقو قماناتو إلهي تيسا هيسو إلهينا أبتك وقوع حفظي إلهي في سورة كهف محوين وقوى الرمي نندنتي أو صالحها
ayaa ilaahay nebi iyo awliyadiisa mid ka mid a isugu soo daray si ay caruurtaa kansigooda yare aan uga lumina loo ilaaliyo. Khidir baa la soo adeegay, markaasaa nebi muusena lagu soo daray. dabeetana derbigii dumayey bay u yimaadeenoo way dhiseen. laba agoona hantidood baa ugu jirtay oo aabahood dhintay, waa u dhiseen. markuu ka waramayey khidir ee ilaahay inooga warramaya muxuu ku tilmaamay? wa kaana abuuhumaa saalixa baa la yidhi. maxaa loo ilaaliyay labada tan? aabbahood baa ahaa baa la yidhi maxay? saalix ahaa. haddaad adigu saalix tahay ha warwarin, haddaad se adigu warwareega tahay kuwaana khatar ba usoo hoyatay. haddaad adba warwareegayso kuwaana khatar ba usoo hoyatay. laakiin salaaxaagu, salaaxul aabaa ayaa ilaahay ku xifdiyaa maxay? abnaada rabbi ku xifdinaya. idan haddaynu toosnaano akhriya adduunba waynu liibaanaynaa. haddaynu toosnaan weynana waman yacshu can dikri الraxmaani nuqayid lahu shayطaana fahuwa lahu qariin waman acrada can dikrii faina lahu maciishata danka. ninkii waman yacshu, ninkii habeeno ka yeesha baa la yidhi. ninkii habeeno ka yeesha, si fiican u arki waaye ilaahay dikrigii ka indhala-aada, nuqayid lahu shayطaana fahuwa lahu qariin baa ilaha yidhi. shaydaan baanu u xidhnaa, dabeetana kaasaa saaxiibkuno. haddii shaydaan lagugu daba xidho iska war, awalba taadaad u taag lahay, mid kaloo ka daran haddii lagu sii xambaariyo waad lumi. ilaahay baa wuxuu leeyay waman acrada can dikri, aniga xuskay ciddii ka jeesata faina lahu maciishatan danka. waxaynu salaad iyo cibaadiya wanaag uga tagna, waxaynu islahayn wax kororhsada. ilaahayna wuxuu leeyahay nolol cidhiidhiyaan gelin. waa laga yaabaa adduun badan inaad soo hesho, laakiin inuu adduunkuba ku gubaabay u badantay. ribaad soo qaadato gurigaagunbaa dumaya. bal u fiirso, inta badan ninka ilaah iyo rasuulkiisa dagaal la galaa, ilaahay dagaalka meel aanad ogeyn buu kaa qabanaya. waa laga yaabaa in gaadhiga iyo intanaad wadwadato, laakiin meel kalaa lagaa qaban. islaantaa lagugu itixaam, caruurtaa lagugu itixaam, balaayadu meel kalun bay kaa geli doontaa. rabbi ninkii la dagaalamow ka badin kari maysid. aakhirana waxaad iman doontaa baa ilaahay leeyihi adigoo indhala aan waxba arkaynin. qaala rabbi lima xashartanii acma waqad kuntu basiira. ilaahu maxaad iisoo xaadirsay anigoo indhoola ah, waa indhaqabay adduunka marka joogee. qaala kadalika aatadka aayaatunaa fanasiitaha wakadalika alyawma tunsa. jidka siraad baad adoo indhala isku soo maqiiqi, awalba jid khatar u ahaa. bal adoo indhala-aana ku darsada qiyaas. waxaa la yidhaahdaa aayaadkaygaa kuu yimi, dabeetana waad ka tagta. maanta adna waa lagaa tegay baa la yidhi, waa lagu ilaabay. ayuha alaxiba, haddaynu jidkaa nolosheenna ku ilaalino, nabi maxamed baa wuxuu leeyahy ninka hamigiisa hami qura ka dhigo, hamiga aakhiro ka dhiga, ilaahay noloshu u ururiya. ninka hamigiisa hami adduunye ka dhigo, adduun iyo xoogsi iyo shaqe iyo halkaa un ku ururiya, kaas buu nabigu yihi faraqa allahu shamlah, ilaahay baa ka kala daadiya. wa jacala faqrahu bayna caynay, indhahana faqri baa loo saaraa, waa ka kala qubata uno indhahana faqri baa u saaran. walam yu'tihi min addunya ila maa kutiba lah, adduunna kama helo intii loo qoray mooyaane wax kale ma helo. ninkii aakhire hamigiisa ka dhigana, ilaahay adduunkiisana waa u ururiya. man jacala alhumuuma haman waaxida hama almacaad kafaahu llahu saa'ira humuumi. ninka hamigiisa hame aakhire ka dhiga, ilaahay baa humuumta kale kaga filaada. ninkii humuumta adduunya isku tiro badayaana, ilaahayna waa ku sii daayaa. dooxooyinka adduunyo miduu doontaba naftu ha kaga baxdee, siduu uxiimaya unbay mid naftu kaga bixi doontaa. idan ayuha alaxiba, toosnaanta faa-iidooyinkaasaynu ku qabnaa. warku hadduu bato intii horu idin lowsiinaya, war badanina wuu ii hadhay, laakiin dhowr kelmadood baan idinku soo koobaya. ilahay qur-aanka wuxuu inoogu sheegayaa wixii inugu kaalmayn lahaa saynu u toosnaan lahayn. aayaadkaasi fastaqim kamaa umirta waman taaba macaka walaa tadqw inahu bima tacmaluuna basiir walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum الnaar wma lakum min duni illahi min awliyaa ثuma laa tunsaruun waaqim الصalaaةa طرفي النahaari wزulfa min alleyl
إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. dhowrka aayadood ee suuratu Huud isku xiga haddaad akhrido ay tafsiiraad ka eegto waxaad helaysaa asbaabta ilaahay uu kaga warramayo lagu toosnaado iyadoo erayo kooban baan idiin sheegay idinkaa dib ugu noqonay. ka koowaad waa fastaqim kamaa umirta ay litibaac inaad bidaca ku dhicin ee toosnaatid. ka labaad waa waman taaba macak inaad isku daydid muslimiinta inaad dugsatid. shayطaanku waraabuhu wuxuu cunaa buu nabigu yihi adib inamaa yaأkulu di'bu min alganam algaasiya. idan bia saalixa inaad isku daydid inaad ku noolaan kartid, dadka wanaagsan raacdid, meelaha wanaagsan fadhiisatid, meelaha fadhi ku dararka iyo qurunka iskaga tegtid, masaajida camirtid. maanta intan baa masaajid ku fadhidan oo ilahay idin soo hagaajiyey. imisa agteenan tuban oo maqaaxiyuu ka sheekeynaya meelaan khayr lahayn. ka saddexaad aayaddu ka rab orantay waman taaba macak, toobadda inaad badsatid iyo istikfaarta. nabi maxamed wuxuu leeyahy maalintii aktar min 70 mara aw 100 mara baan toobad keena. wa cadami tugyaan inaad xadgudbin, itibaac inaad ku dhaqanto, tasayub iyo guluwi midna inaad ku dhicin saynu soo tilmaamay. inahu bima tacmaluuna basiir baa ilahay yidhi. inahu bima tacmaluuna basiir. almuraaqaba inaad ogaatid wax kastoo aada samaynayso ilahay inuu ku arkayo. walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu, cadama arukuuni ila dalama. inta wax dulminaysa inaad u hiilinin madaxweyne, in adeerka, qabiilka haddaad u hiiliso dulmigoodaad qaadaysa. dadka wax dilaya haddaad u hiiliso dilkoodaad ka qeybtay. walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum naar baa ilaha yidhi. war ha weecanina kuwa dulmiga samaynaya oo naariyaydin haleeli. aqimi salaata arafi, salaada ooga. intaa waxaa raaco ilaahay leeyahay sabra wasbiruu faina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin. waayo wadada markaad ku toosnaato qodxa badan baad la kulmi, laakiin waxaad u baahan tahay maxay? si aad u suganto inaad sabirtaa baad u baahan tahay. ilaahay subxaana wa tacaala haddana wuxuu kasii waramaya aayaadka ku xiga qiyaame iyo waxaa dhici doona. geerida xasuusnow. haddaad geerida xasuusantay waa toosnaa, waayo geerida garan maysid. gaarigaa ka horeeya inuu shilku geli, tareelle inuu kaaga kor mari, garan maysid. geerida xasuusnow. qiyaamuhu yuu kaa libdhin. haddaad qiyaamaha ilowdo adduununu hortaada yaallo, waagu markuu beriyo barnaamijkaad la soo kacdaa inuu yahay adduunun hadduu noqdo oo aada ilowdo alxamdu lilahi aladii axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi nushuur. qofka muminkii markuu soo kaco wuxuu xasuustaa in jaanis kale la siiyey. waxaa mahad leh ilaaha nafta igu soo celiyey geeri dabadeed, isaguna loo noqonayo wa ilayhi nushuur. qiyaamaha ilaabina. aayadku waxay kaloo ina farayaan waxyaabaha lagu toosnaaday asbaabta waxaa ka mid a alamru bilmacruufi wanahyu can ilmunkar. muxaadaraad badan oo hore duuban waa helaysaan oo asbaab alistiqaama ah ama asbaab athabaati cala diin, labaduba iyagoo duuban bay ku jiraan nadka. ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala annaga iyo idinkaba dembigeena inuu dhaafo, dembigii waalidkeen dhaafo, intaynu ka naxayna dembigooda inuu dhaafo, ubadka iyo caruura iyo haweenkeen ilaahay inoo toosiyo, dalkeena iyo dadkeena dad quman in alla ka dhigo, dantooda aakhir iyo adduunba in rabbi tusiyo, kuwii toosnaada ee jidka toosan ku toosnaada in rabbi inaga yeelo, dariiqa toosnida in rabbi ina xasuusiyo iyo jidka lagu toosnaanayo inuu rabbi kuwa diinta ku sugma inaga yeelo. nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa ku ducaysanaya ilaahu qalbigayga diinta ku sugay, inta rabbi diinta qalbigooda ku sugay in rabbi inaga yeelo. sala allahuma calaa muxamadi wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin.